waalid wali waxaan ku jirnaa tarbiyadda carruurtu inta aanay 7 sano gaarin. Marxaladan waxaa la yiraahdaa connection before direction. Ilmahan inaad isku talaalantaan oo adiga ay kugu xiran yihiin, oo ay ku jecel yihiin, oo ay kugu kalsoon yihiin, oo kula sheekaysan karaan inta aadan direction siin, inta aadan jihaynin. Sababtan saa u leenahay maxay tahay? Sababtan saa u leenahay waxa weeye Quraanka waxaan ka baranaynaa connectionku inuu ka horeeyo directionka. Yaa bunayya, wiilkaygii aan jeclaayo, ilmahaygii aan jeclaayo ayaa ka horeysa laa tushrik billah, ilaahay u shirkiyeed. yaa bunayya, wiilkaygii aan jeclaayo baa waxay ka horeysaa aqim salaada oo. yaa bunayya, ilmahaygii aan jeclaa, fiiri waa ilma aad maal gashatay qalbigooda, waa ilma aad jacaylkaad ku soo korisay, aad ku soo dabayso, waa ilma adiga kugu xidhan. 7 sano markay jiraan maskaxdoodu alle subxaanahu watacaala ee aakhiro weli inay ka fikirto maanay gaadhin, laakiin adigii ku haagi lahaa waa inay kugu xidhmaan. 7 sano waa muhiim marka. sidaa darteed 7 sano marka ay jiraan waa xilliga la raba inay ku yimaadaanay ku dhahaan aabe xalay waxaasaan ku riyooday, inii ra'aytu 11 kawkaba. adiguna marka aad tiraa yaa bunaya, yaa abati, niqaashka uu ida dhex yaalo. marxaladan waxaa la yidhaha marka connection, inaad marka hore isku xidhan tihiin, mid aad tihiin, qalbigiinu isku tallaalan yahay before direction, intaadan direction siin. cagsigeedu muxuu noqonayaa adigoon ilmahan qalbigiisii maal gashan, adigoo ilmahani ay kugu kalsooneen, adigoonan jacayl ku soo korin, oo aydan mid ahayn, oo bay'ad kale ay maal gashatay, ma odhan kartid laa tushrik billah, waayo kuma xidhnid. ilmaha markuu adiga kugu xidhmo ayaad rabbigood ku xidhi kartaa. waa marxalada la yidhaahdo connection before direction. allah awlaadeen xifdiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullah.